munaasabad si heersare ah loo soo agaasimay ayaa ka qabsoontay hoolka aqalka martida ee degmada Ceelaf Weyn. Munaasabadan ayaa daaranayd ujeedka bogaadinta iyo waliba hambalyeynta go'aankii ay golaha guurtidu muddada 2 sanada ugu kordhiyeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaana ka soo qayb galay madashaasi maamulka dowladda hoose ee degmada Ceelaf Weyn, xogayaha fulinta, cuqaal, waayeel, waxgarad, haweenweynaha degmada Ceelaf Weyn iyo waliba marti sharaf kale oo badan. Waxayna dhammaantood hambalyo u direen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, iyagoo amurtaasi ka hadlayana hadaladoodii ka mid ahaa. ka turjumaysaa taageerada aan ku taageerayno madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ee 2 sano loo kordhiyay. aad iyo aad baan u soo dhaweynayna waana taageerayna golaha guurtida ee kordhiyayna waanu mahad celinayna waajibkoodii bay guteen. waxaanu isugu nimi inaynu taageero rayigana ku taageero muddo kordhinta 2 sano ah ee loo kordhiyay madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi. waanu taageersanahay horta kaloo taageersanahay muddo kordhinta guurtida ee 5 sano madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi xildiid ayaanu aad iyo aad si muglio miisaan la aanu hambalyeynay kaloo aanu u hambalyeynay guurtida waa guurtidii lagu caanamaalay waa sidii looga bartay iyana muddo kordhinta loo sameeyay aad baan u hambalyeynay. waxaanu kaloo ka soo horjeednaa barawaxa badan bahal soo jiid beeleeda waxaanu ka soo horjeednaa cidii ku qaylisa waayo cidda ku qaylisa waa cid aan rabin midnimada Soomaaliland iyo dhismaheeda iyo sidii loo bartay waa cidda ku qaylisa ayaanu cambaaraynaynaa. waxa la kordhiyay 2 sanadood oo madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi oo loo kordhiyay iyo guurtida oo kamida xubinta ugu lafaysan Soomaaliland. waxayna la tahay kordhinta madaxweynaha inay tahay halkeedii la dhigay ay tahay tingiyo very much waa ku taageeraynaa. guurtiduna waa sidoo kale iyana waa ku taageeraynaa. muddo kordhintii xukuumadda uu hogaaminayo mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan leenahay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa muddo kordhinta haddaanu nahay shacabka degmada Ceelaf ku dhaqan. anigu mucaaradka iyo muxaafidkaba waxaan leeyahay war hal la iimaansado muddo kordhinta waa wax wanaagsan waxnayna yeeli mayso. kan maanta aanu madashanaanu ku taageeraynaa waanu intayada tan isugu nimi inta maqana aanu ku metelayna haddaanu nahay waayeelka iyo maamulka iyo dadweynaha halkan fadhiya ee degmada Ceelaf Weyn. taageerada muddo kordhinta ee loo sameeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ee 2 sano ah ee bisha 30keedii ay guurtidu u kordhisay ayaanu taageeraynaa mar iyo 2 iyo 3 iyo 4ba. madaxweynaha qaranku Muuse Biixi Cabdi waa ninkii ugu waxqabad badnaa dalka. guurtidana dalka waa badbaadiseen dhibaato ka badbaadiseen ilaahay ha idin xafid. golaha guurtida iyo madaxweynaha waa soo dhaweynaynaa muddo kordhinta loo sameeyay. insha Allah waxaan rajaynaynaa muddo kordhintaas inay isbedel weyn dhasho waxa weeye dalka iyo deegaanadaba runtii waliba ka deegahan gobolka Sanaag ee degmada Ceelaf Weyn in runtii aanu ku aragno isbedel weyn. mid baan kaga duwanahayo madaxweynahana waanu hambalyeynaya golaha guurtidu muddo kordhinta ay sameeyeen waa ku hambalyeynayna. laakiin anigu qolada mucaaridka baan ahayo salaanta mucaaridkan siinaya oo mar haddii qodxaya lagu jajabiyey waar anigu saaxiibayaan idinkaan idinka mid ahaayo berri baynu meesha imanaynaa nabadgelyada inoo ilaaliyo. waxaan soo dhaweynayaa muddo kordhinta madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ee ay sameeyay golaha guurtidu aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya. horta marka hore waa taageersanahay labadaba sida ay madaxweynaha ugu kordhiyeen iyaguna isugu kordhiyeen waa taageersanahay. inta kaliya aan ku kordhinaya wax weeye qoladan baarlamaanka iyana marba dhinac u yaacaysa war sidaa bal qolada guurtidu ay wax isugu raacabaan leh. dhammaantood aanu isugu soo baxnay inaanu taageerno muddo kordhinta ay sameeyeen golaha guurtidu ay u sameeyeen madaxweynaha 2 sanadood ah iyo kororsiimada golaha guurtida. waanu ku hambalyeynaa qodob baan ku kordhin lahayo laba dastuurigu wuxuu ahaa marka madaxweynaha doorashadiisa la qabanay sanad bay ka dambaysaa guurtida. inay 5 ku dhadhaarinahay 2 sano 3 sano ku darsadaan oo ay 2 ka dhimaan. xafladan inay ku maamusaan oo ku soo dhaweeyaan muddo kordhinta loo kordhiyay
labada sano muuse biixi cabdi aanu ku hambalyeynay oo ku muureynay sharaftan ka dhacday Soomaaliland aniga muddo kordhinta le madaxweynaha ee taguurtida le ilaahay baa waxa weeye inoo dooray waxaan leenahay bismillaah xafladan la isugu yimid halkan maanta waxa weeye muddo kordhintii Soomaaliland cado badan bay leedahay waxaan oran lahaa madaxda isaga jawaabaysa meerfashiyada warka maanta joogaana ka aan maanta joogin ee mucaaradka isaga ka mas'uula ka maanta kursiga doonaya ee mucaaradka ahna bari hadii lahaa uu qoray insha Allah bari ayuu kursiga ku fadhiisan doonaa horta muddada labada sano ah ee madaxweynaha loo kordhiyay waa u hambalyeynay in lagu taageero muddo kordhinta loo sameeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee qarankan ka taliya iyo golaha guurtida hambalyaan leenahay madaxweyne waa ku soo dhaweynaynaa haddaanu heer ceelaf weynahay waan ku soo dhaweynaynaa madaxdayada waxaan ku taageeraynaa oo aan ku hambalyeynaa mid kasta madaxweynaha oo soo maray dalka Soomaaliland ugu dambeyntiina waxa halkaasi ka hadlay maayirka degmada ceelaf weyne maxamed aadan digaale iyo maayir ku-xigeenkiisa maxamed jaamac liibaan iyagoo dhinacooda si la mid ah taageeray go'aankaasi muddo kordhinta ay sameysay golaha guurtidu taasoo ahayd madaxweynaha oo 2 sano iyo iyagoo 5 sanadooda waxaan runtii ka rajaynaynaa madaxweynahana sida la sheegay loo kordhay hadeer labadaas sano ku dhamaysto inuu si sharaf leh waxasilooni ah oo deganaanshiyaa kaga digi doono hadii la yiraahdo oo ku wareejin doono oo aan kordhis dambe aan dhici doono hadii la yiraahdo ku taageeraynaa go'aankii ka soo baxay golaha guurtida ee ahaa in 2 sano loo kordhiyo muddaxileedka madaxweynaha guurtidana 5 sano ay kororsatay kaasayna hadeenahay shacabka reer Ceelaf Weyn maamul iyo madax iyo majaba aynu ku taageeraynaa waa taageersanahay waynu hambalyeynayna waa maxamuud ismaaciil maawel maxamuud abaadir Real 24 TV Ceelaf Weyn